halkan maxaad ka samaynaysaa gabadheedii waa in alaabta aad ay khatar u tahay joogista Muqdisho هاي عيارتا سو دبادا muuqaalkeena maanta waxa ku wadaagi doonaa filim ama qiso dhab ah qisadan ayaa waxa ku dhacday gabar Soomaaliyeed magaceedan waxa lahaa Ifraax Axmed intaan muuqaalka ugu gudbin ka hor waxaan ka codsanayaa haddii channelku cusub tahay inaad channelka subscribe saartid haddii muuqaalka ku cajibina like aad iyo aad u mahadsan tahay daawasho wacan muuqaalkeena maanta waxaan arkaynaa gaarigan wuxuu imaanayaa guriga Ifraax waxa uu ceyso hooyadeeda waxayna ku leedahay kaalay Ifraax waxa la siinayaa daab aad u fara badan waxaan arkaynaa waxa iska bacdiya Ifraax oo la galbinayo oo ah aroos waxa halkaas loo guursaday Ifraax wixii ka soo cararaysa ninkeeda waxaan u soo cararaysa magaalada Muqdisho waxaan halkaas degan aabaheeda laakiin sanadu waxay ahayd 2006 waxaan halkaas ka socday dagaal lagu hobto waxaan arkaynaa diyaaradihii Itoobiyaanka oo duqeynayo magaalada Muqdisho Ifraax iyo dad kale waxay badbaadsanayeen naftooda xiligan Muqdisho waxa watay qoriga cid walba waxayna ahayd meel halis ah Ifraax waxay ka soo carartay ninkeeda loo guuriyay mar dhow waxaan u soo carartay aabaheeda kooxooyin maleeshiyaad ah ay waxay ciirsanayeen dadka laakiin Ifraax waxay ka soo duumanaysaa kooxooyinkaas maleeshiyaad ugu dambeyntii Ifraax waxay imaanaysaa guriga aabaheeda waxaana halkaas joogay aabaheeda iyo walaalkeeda Ifraax aabaheeda wuxuu weydiinayaa wixii halkan u timiday waxaana ka muuqda wajigeeda dil wuxuu weydiinayaa wax ku dhacay Ifraax waxay ku jawaabaysaa waxay dilay ninka ay ku dartay laakiin nasiib daro Ifraax aabaheeda uma haynin Janice Ifraax walaalkeeda iyo aabaheeda waxay ku leeyihiin xaaladda Muqdisho waa halis ee iskaga noqo ceelasha biyaha Ifraax aabaheeda iyo walaalkeeda iyo familkii halkaas joogay waxay ahaayeen ku difaacay naftooda waxayna aasinayaan fronta hore ee dagaalka waxayna la dagaalayeen Itoobiyaankii soo duulay Ifraax hadalka aabaheeda iyo walaalkeeda ma maqlayso waxayna soo galaysaa guriga aabaheeda kaasoo ahaa mid cidla ah oo laga kala qaxay magaalada Muqdisho waxa ka maqnayd badankeeda korontada waxayna ahayd mid koronto la'aan ah oo dad la'aan ah Ifraaxna waxay joogtay xiligan kaligeeda guriga Ifraax waxay sugaysaa aabaheeda waqti walbana waxay ka fiirinaysay daaqada laakiin aabaheeda wuxuu ahaa mid ku maqan dagaal Ifraax maalin walba waxay fiirinaysay daaqada waxayna sugaysay aabaheeda iyo walaalkeeda inay u imaadaan laakiin nasiib daro Ifraax waxa gurigu soo galayso maleeshii hubaysan Ifraax ciidankii waxba ma weydiinayaan waxayna u soo dhawaanayaan Ifraax laakiin nasiib daro waxay halkaas ku kufsanayaan Ifraax ciidankii Ifraax markay ka dhameystaan hawshooda way ka tagayaan waxaan arkaynaa Ifraax oo joogto ayeeyadeeda Ifraax ayeeyadeeda waxay u wacaysaa Ifraax habareerteeda oo joogto Mareykanka waxayna u weydiinaysaa lacag lagu daaweeyo Ifraax waxa loo soo dirayaa lacag waxaana lagu daaweynayaa lacagtay soo dirtay habareerteeda Ifraax markii la daaweeyo ayeeyadeeda waxay u noqonaysaa afgooye Ifraax waxa uu imaanayo ninkan waxa uu soo dirtay Ifraax habareerteeda wuxuuna leeyahay halkan kuma yaalo mustaqbal ah mustaqbalkaaga wuxuu yaalaa meel Soomaaliya ahayn habareertan wuxuu ku soo dirtay lacag ku amba baxday iskaaga tag halkan wax mustaqbal halkan kuma haddii fursad aad u haysid inaad tagtid waa inaad ka faa'iidaysato Ifraax waxay soo raacaysaa ninkiina wuxuu soo wadayaa meel ah bangi ku meel gaar ah bangigaas ay wuxuu soo qaadayaa lacag Ifraax ninkii wuxuu keenayaa busteejo waxay ahayd busteejada laga raaco baabuurta aasato Itoobiya xiligan gabaaridu waa la isku tuugsanayay haddaad wada tictaa lacag dadkana waxay ahaayeen kuwa aad u badan saaxiib halka wada gabadha kaligiisa laakiin Ifraax waxay ahayd nasiibkeeda waxaan loo soo qaadayaa dhankaas iyo Addis Ababa Ifraax intii jidka ku jireen waxa qabanayo kuwa maleeshiyaad ah waxayna ka qaadayaan dadka meesha saarnaa baad Ifraax laakiin ma ahayn mid haysta lacag waxayna saarneeday gaariga dushiisa maleeshiyaadkina ma arkayaan Ifraax waxa la keenayaa xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna halkaas ka sii raacaysaa gaari kale oo geeyo Addis Ababa Ifraax xilli habeen ah waxa la keenayaa ugu dambeyntii Itoobiya waxaana soo kaxeynayo ninkii wada gaariga wuxuuna keenayaa gurigiisa Ifraax waxay halkaas joogtay 2 maalin waxaana uu imaanayo ninkan Ifraax wuxuu ku leeyahay waxay soo dirtay habareerta waa inay soo raacdo aniga habarta ay ka soo dirtay Ifraax ninkii wuxuu u sheegayaa inuu wado passport fake ah wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa inaan ka gudbiyo airportka Addis Ababa wuxuu ku leeyahay haddii loo qabto isma naqaan anigana kuma aqaani adigana ima taqaani waxa la soo gaaraya qaybta lagu baaro baasaboorada airportka Ifraax waxay fiirinaysay wiilkii loo soo diray waxayna sidaas ku raacayaan diyaaradda Ifraax waxa la keenayaa meel waxayna weydiinaysaa inay meeshan tahay America inta Minnesota miya laakiin wiilkii wuxuu sheegayaa inay halkaan ahayn America ayna tahay dalka Ireland Ifraax wuxuu ku leedahay waxaan rabaa inaan tago habareerteeda waxaan rabaa inaan tago America laakiin wiilkii wuxuu sheegayaa inuu heshiiskiisa ahaa inuu keeno Ireland wuxuu u sheegayaa Ireland iyo America inay waxba isdhaamin wuxuu leeyahay halkaan waxa jir meel isku dhiibo waxaan ku geenayaa meelahaas Ifraax way adkeynaysaa wayna cabsoonaysaa wuu soo wadayaa wiilkii wuxuuna keenayaa meelaha la isku dhiibo wuxuuna u qorayaa qoraal magaceeda ah iyo halkii ka timiday Ifraax wuxuu gudaha u soo galaysaa meelihii la isku dhiibayay waxaan halkaas joogay qaxooti Ifraax waxaa la hadlayaa nin wuxuuna ku leeyahay halkii ka timiday Ifraax hadalkiisa ma fahmaynin wuxuuna ku hadlayaa luqadda Ingiriiska ninkii Ifraax waxay siinaysaa warqad wuxuuna akhrisanayaa warqadaas Ifraax waxaa loo wacayaa qolooyinka gargaarka Ifraax qolooyinka gargaarka wuxuu wacayaa turjumaankaas oo ahaa mid ka turjuma taleefanka Ifraax qolooyinkii caawinayay wuxuu ku leeyahay saxiix halkaan laakiin Ifraax ma ahayn
xitaa qof qori karto magaceeda waxayna ku leedahay ma qori karin waxaana ahaayeen qabow aad u daran ifraax waxaa laga qaadayaa faro waxaana la siinayaa jaakada ka gasho qabowga ifraax qolooyinkii caawinayay waxay u soo wadayaan hotel ay jiifato ifraax waxaa ka hor imaanayso hotelka albaabkiisa gabar Soomaali ah waxayna ifraax ku leedahay Soomaali ma tahay gabartii wuxuu ku leedahay Somali ma tahay laakiin labadoodu waxay ahaayeen mid walaalo camal waxayna isiinayaan habnaagtii cadiinka wuxuu ku leedahay horomiya isku taqaaniin laakiin gabartii joogta halka waxay ifraax ku leedahay hadaanana Soomaali waxaana walaalo ifraax waxa qol la dejinaya gabartii Soomaalida ahayd subaxdii ku xigtay ifraax waxa uu maanayo qolooyinkii caawinayay waxayna ku leeyihiin waxa rabnaa inaan ka qaadno tijaabo caafimaad ifraax waxa loo soo kaxinayaa cusbitaalka waxa ku sugayay wiilkii turjumaanka ahaa waxaan loo sheegay ifraax inuu yahay kii u turjumayay oo ugu turjumayay taleefanka magaciisa waxa la lahaa Maxamed ifraax waxa turjumaan u ahaa wiilkii Soomaalida Maxamed wuxuu ku leeyahay waxa laga qaadayaa tijaabo caafimaad waxaan laga baarayaa cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS iyo cudurka kale oo dilaaga ah hepatitis B ifraax waxa la leeyahay waxa marti tijaabadii ugu horeysay waxaan u gudbaysaa tijaabadii labaad tijaabada soo ah in laga baaro uur iyo waxyaabo kale ifraax waxay maraysaa tijaabada caafimaadka ee labaad waxayna soo xasuusanaysaa gudniinka la guday iyo rafaadka la soo horsiiyay ifraax waxa uu maanay Maxamed iyo dhakhtarka iyo naagtii caawinaysay ifraax waxay u maleynaysay inay qabto HIV/AIDS waxayna ahayd qof naxsan ifraax waxay ahayd qof aamusan waxaan loo wacayaa gabadh dhakhtarad ah waxaan la isku reebayaa Maxamed iyo gabadhii dhakhtarada ahayd ifraax gabadhii dhakhtaraded waxay weydiinaysaa waxa ugu dhacay dhanka hoose ifraax waxay cisho weynaysaa ooyinta waxayna bilaabaysaa inay ooyso ifraax waxay ahayd gudniinka fircooniga qaybtiisa saddexaad oo loo yaqaan tape 3 waxayna ahayd qof si xun loo soo galay waxaana dhaantay nolosheeda inay iska dhimato ifraax waxay ahayd qof dareemayso waqti walba xanuun waxaana la tacaalaya dhaqaatiirtii joogtay wadanka Ireland ifraax waxaa la geenayaa iskuul waxayna halkaas ku baranaysaa luqadda Ingiriiska iyadoo ay ahayd qof wanaagsan waxbarashadeena waxay ahayd mid heer sare ah sidoo kale ifraax waxaa la barayaa sida loo isticmaalo kombiyuutarka ifraax maalin leeyahay xisada waxay u sheekeynaysaa dadkii jooga xisada wax kastoo ay soo martay waxayna ahayd qof barato luqadda Ingiriiska waxay ka sheekeynaysaa ifraax gudniinkeeda iyo wax kastoo lagu soo sameeyay ifraax kaliya uguma sheekeynin kuwa ku fasalka ah waxayna kaloo sheekada la wadaagaysay dad dhaqaatiir ah waxayna qof barato luqadda Ingiriiska waxay ahayd maalin ciid ah ifraax waxaa la joogtay in adeerteeda iyo gabar kale oo ah dariska waxaana halka loo gudayaa ifraax iyadoo loo gudayo gudniinka fircooniga waxaana la gudayaa gabarta adeerkeeda dhalay iyo gabar kale oo diriskeeda ah waxaana la isku xirayaa labadooda lugood ifraax waxay leedahay 40 biri iyo 40 habeen ay wax ugu xirnaanay xarigaas ifraax waxay leedahay gudniinka fircooniga waa dhaqan soo jireen ah kaasoo ka soo dhaxalay faraacinadii waxayna leedahay maaha mid qusay diinteena waa dhaqan iyo caado xun oo saameeyay dadkeena ifraax qisadeeda waxaa maqlaya dad caan ah oo madax ka ah dalka Ireland waxayna noqonaysaa qisadeeda mid caan ah ifraax iyo gabdho kale waxay sameynayaan qanaanbax waxaana halkaas ugu tagayaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxaa ka celinaya waardiyaha laakiin wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu leeyahay sida ifraax waxay la kulmaysaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxayna rabtay in la kulanto madaxweynaha xiligaas Barack Obama ifraax waxay wateen boorar ay ku xariran yihiin ma qiyaasi kartaa xanuunkeeda ee ula jeedeen xanuunka dareemayso hooyada Soomaaliyeed iyo gabdhaha Afrikaanka ah ifraax waxay hortagaysaa madaxweyne Obama iyada iyo gurubkeeda waxayna ahaayeen kuwo boorkooda soo bandhigo fagaarahaas ifraax ololadeeda waxa arkayo madaxweyne Obama waxay noqonaysaa qof caan ah waxa wareysanayo TV-yada warbaahinada kuwaasoo ah kuwo ifraax rabay inay ka ogaadaan xog aad u sii fara badan ifraax dhanka kale waxay ahayd qof aan ka tagin diinteeda waxayna soo bandhigay ifraax dhaqanka Soomaalida iyo gabdhaha muslimiinta waxayna fashion weyn ku qabanaysaa magaalada Ireland gabdhaha soo hay kuwo xijaaban waxayna u bixisay xijaab fashion show ifraax waxay qalin jebinaysaa waxbarashadeeda ifraax sidoo kalena waxay helaysaa sharciga dalkan Ireland ifraax waxa soo gaarayso fariin message ah oo soo dirtay habaryarteeda fariintaasi waxay ahayd in walaasheeda ay joogto dalka Talyaaniga waxaana la leeyahay walaalka asigana uu soo tahriibay mana la yaqaan meel uu jiro sidoo kale aabuhu uu nool yahay wuxuuna joogaa magaalada Muqdisho ifraax waxay ka shaqo bilowday qolooyinka UN-ka waxay u sheegaysaa qolooyinka UN-ka inay soo aragto inay u baahan tahay aabaheeda ifraax waxay soo aasinaysaa airportka Ireland waxaan halkaas joogay wiilkii muqalaska ahaa oo soo wadayay ifraax wiilkii muqalaska ahaa ifraax wuxuu ku leeyahay waxa sameynaysi waa wax qaldan waxa ku xad gudbaysaa dhaqankeena yana gaaladan ku duufsanin kumana fiicno waxa sameynaysi laakiin ifraax waxay leedahay inta ka badan aamusnaa kali mana rabo gabar kale oo Soomaaliyeed sidaan loo galo waxayna ugu tagaysaa wiilkii halkaas ifraax waxay ka soo deganaysaa airportka magaalada Muqdisho halkaasna waxa loogu soo qaadayaa gaari leeyahay UN-ka waxaana gaarigaas saarnaa ciidamada Ugandeska oo ilaalinaya amniga magaalada Muqdisho ifraax waxa la keenayaa ceelasha biyaha waxayna halkaas ka raadinaysaa aabaheeda ifraax waxay ka weynaysaa aabaheeda halkaas waxayna u sheegaysaa wiilkii cadiinka ah oo la socday inay ka soo fiiriso xaafadooda ifraax waxay arkaysaa muddo ka bacdi aabaheeda oo fadhiyo guriga hortiisa asigoo tusbixsanaya ifraax aabaheeda wuxuu aamin weynayaa inay hortiisa taagan tahay gabadhiisa ifraax wuxuu u maleynayaa inay dhimatay ifraax waxay siinaysaa aabaheeda waxayna ahaayeen kuwo isku ooyay ifraax waxay soo galaysaa gudaha waxayna la kulmaysaa aabaheeda iyo walaasheeda
walaasheeda. Aabaheeda wuxuu ku leeyahay wax kasta waxaan ka maqlay BBC-da iyo VOA-da. wuxuuna ku leeyahay waxaa samaysamee wax fiican, waxaana rabtaa inaa ayeedaa weydiisid hadda maxay kuu guday. Ifraax aabaheeda wuxuu ku leeyahay ayeedaa way xanuunsan tahay, waxayna jiftaa sariirta, hana weydiinin su'aalaha maxaa ii guday iyo wax kale. Ifraax wuxuu tegaysaa ayeedeeda. ayeedan waxay leedahay ha ii soo dhawaani, waxaana qatay qof xun. Ifraax waxaa la soo qaadaya madaxtooyada Soomaaliya, waxayna la kulmaysaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxayna ka wada hadlayaan gudniinka fircooniga iyo waxyaabo kale. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku leeyahay Ifraax macquul maahan waqtiga inaan joojino gudniinka fircooniga, dalkan wuxuu ku jira dagaal. Ifraax waxay ugu soo tegaysaa halkaas. Ifraax wuxuu ku soo noqonaysaa ayeedeeda iyo aabaheeda. Ifraax waxay ku leedahay aabaheeda maxaa sidaa noogu gasheen. aabaheeda wuxuu ku leeyahay tani waa dhaqankeena, ma ahan gaalada wuxuu kuu soo sheegay inaad qaadatid. wuxuuna ku leeyahay aabaheeda waa inaad joojisaa ka hadalka gudniinka. wuxuuna leeyahay aniga iyo adiga tan nooguma jirto xaalad amni darteeda. Ifraax way xanaaqaysaa, waxayna leedahay aniga waxaan ahay qof u dhashtay dalka Ireland, waxayna ugu cararaysaa halkaas aabaheeda. waa hagaag maalintii ku xigtay waxaa kulmaayo Ifraax iyo ayeedeeda. ayeedeeda Ifraax waxay u sheegaysaa waxaan inay ahayn wax soo jireen oo dhaqan ah, waxayna halkaa ku raadinaysaa gabarteeda. waa hagaag Ifraax waxay bilaabaysaa ololahaasoo ah inay ka joojiso gabdhaha Soomaaliyeed gudniinka, waxayna tegaysaa kaamanka ku yaalo Soomaaliya. Ifraax waxay leedahay ha gudina, laakiin dadka ma ahayn kuwa maqlaaya. Ifraax waxay bilaabaysaa ololo kale, ololahaasoo ah $100 qaado gabartaadana ha gudin, waxayna siinaysay qof walba oo familkaas mas-uulka $100. sidoo kale waxay ku daarinaysay kitaabka kariimka. waa hagaag waxaan arkaynaa Ifraax oo ka khudbaynayso shir ay lahaayeen midowga Yurub, waxaana halkaas joogay madaxweynaha Soomaaliya. Ifraax khudbadii wuxuu kusoo qaadanaysaa ololahay qabatay, waxayna ku leedahay madaxda halkaas ku timid iga caawiya inaan ololahaas sii wado. waxaana soo istaagaya madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna ku leeyahay waxaa qabatay qol fiican Ifraax. tani waxay ahayd qisada Ifraax Axmed. Ifraax qisadeeda waxay ahayd qisa dhab ah. madaxweynaha waqtigaas joogana wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxayna Ifraax sidoo kale la kulmaysaa Cumar Cabdirashiid oo ahaa waqtigaas ra'iisul wasaare. sidoo kale Ifraax waxay ahayd qof badbaadisay ku dhawaad 5 milyan oo gabdho oo Soomaaliyeed, waxayna ololaheeda naqday ololihii ugu wanaagsanaa abid laga fuliyay Afrika. muuqaalkeeda maanta wuxuu ku eegyahay halkaas. haddaad jeceshahay muuqaalada noocan camalna soo badino channelka, haddaa ku cusubtaa subscribe saar, haddaad muuqaalka ka heshina like. aad iyo aad ay umahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. منبعي مساجد النبي عليه الصلاة والسلام كما تجي النبي أمة ما ركتاني أدوية كوها مونيسا كما تجي العالم كما تجي أمة آخرته أي لو أنت ودينته أي لو أنت وإيمانك لو يعي وأصلا نمده أي لو أنت عقبة بن نافع مدينة كدغاغي مصر بو يمدي ليبيا يمدي محيط الأطلس مغرب انتو استاغي زمن كان دلك واغا زمن كا دلك راجل لما قوني فرس يتمد قليه ويري يا رب لو علمتم وراء هذا البحر المناسب لبلغت عليهم لا اله الا الله يا رب حتى نبهي بدا تدني كل شيء لا اله الا الله والكسر احسن منها كليا أنا بدأنا ومعي أريد أن أتجزأ وأنه لا يكون سمشة بقية الله ومضم وحققتك النبي عليه الصلاة والسلام منها شو حققتك ومعي صدح الشيء زمك النبي ومضوي وضل هاي علمي هي عمل هي الدعوة صدح لا زمك النبي ومضوي وضل هاي ننكستو صحابية قبل كستو صحابية وهاي عالما بدينهم دينتو ذوي القانين عاملا بدينهم دينتو ذوي القانين